حكومة الجاسين awoodda dalka la wareegay marka mana jirto madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday meel uu ka soo faragelin karo ama awood ra'iisul wasaare ku dhimi karo ama xaafi wixii uu sameeyay 27 December oo ahayd inqilaab cad oo ciidamada waa u imanaya midaas inqilaabka iyo waa u imanaya midaas waa u imanaya midaas fiqi waxa fiicnaan lahayd khudbad ma jirtay inaad su'aalaha lagu weydiiyo aad ka jawaabtid maya saa u fasirin fiiri qodobka aan isku waxa mugta aan laga doodin baa jirta madaxweynaha haddaad fiirisid qodobka 87 waa madaxa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya أنا ما أرميسنا يا مركز مرسول إبي حلبان إلا تاجره وفرماجو يا رميسنا يا مسوي الزيرك وحرميسنا يا ورفافين توركيسة عقوبته أفينكو دي يا رميسنا يا لكن حلبان كلفتي يسوي شيء إن تريد جوجي مكاس ومرخاتك يا إندي سوق كاركيو شيء إذا كنا ماشي سكهر يمادين والله بقى وكرب دحين ومرخاتي بدوسة أنا قاعد عدين كذا بوهين أنا قلت لك دفاع عن فكرة ما تدري قلت وانا دور قضاء وانا ماشي كجري وانا تجي ربتي وانا تجمي عبد الرحمن عبد الشكور مركه ولي هاي وحبان ايضا بميل صار واستسعوني وايدين انا فارق فرماجي الروبل maxay isku hayaan aniga hadii ma aaminsanid inay hayaan aniga waxaan u arkaa madaxweyne iyo ra'iisul wasaarihiisa oo shaqo ka wada dhaxayso Arabi iyo kuwa Afghanistan hadana at same time qofkii shalay ku magacaabay hadana maanta inuu ku yiraahdo waxaan hada filimkiisa waxaan sameeyay laga raba marka anigu ma arkaa xafiisyada inuu shaqeynaya madaxweynaha waa jooga shaqadiisa wata xafiiska dalka waa jooga laakiin shaqada dhimista iyo shaqada kordhinta waxa awood u leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya laakiin awooddaas madaxweynaha haatan ma muuqato Soomaaliya hadii ra'iisul wasaarihii uu xafiiskiisa ku shaqeynayo maya saa u fasirin fiiri qodobka aan isku waxa mugta aan laga doodin baa jirta madaxweynaha haddaad fiirisid qodobka 87 waa madaxa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waana astaanta midnimada qaranka Soomaaliyeed marka uu fadhiyaa iyo shaqeynaa iyo waa shaqeynaya kama hadlayna waxaan ka hadlaynaa madaxweynihii shalay adiga ku magacaabay ra'iisul wasaaraha mataqaana ka dhigay haddana inuu ku yiraahdo waxaan u jiraan shaqadaas in la horumariyo kana u rabnaa waxaan qabanayna anigu uma arko mataqaanaa waxyaabaha hadda afka lagu haraaqayo aad u falxun waddankan ku habooneen qalabna ah dadka kelmadan oo qalabka ama askardiga ama xildhibaan midda uu imanayna laakiin marka hore waxaa tiri madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha wax u dhaxeeya ma lahan marka sida muuqatana wax way u dhaxeeyaa maqtaawi Cabdi Fataax adiga dadka alif waxbuu leeyahay waxba lama anigu ma garanayo waxaan ku sheegayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo prime ministerka jamhuuriyadda prime ministerka xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya labadaba waa joogaan madaxweynaha amar uu bixiyay amarkiisu wuxuu ku saleeyay howl jirta oo dacwadaas meel marinteedana waxaa looga dursugayaa hadba wixii ka soo baxay jawaabtaas laakiin anigu ma garanayo sabab hadda aad u keento tiraahdo madaxweynaha prime ministerka dagaal ma jirin waxa waaye carab iyo khubwaad qoodaan aan ku yiri xafiiska shalay ninkii ku diiday maanta inuu ku yiraahdo waxaan kugu sameeyay degradation wax dhigo aniga aan u arka ma jirtaan malena marka ma waxaad diidan tahay in ra'iisul wasaaraha uu yiri dawladda anaa ka mas'uula doorashadan ilaa ay ka dhamaanayso hawsha anaa wadaya xataa ciidamada ana iga tala qaadan doonaan Cabdi Fataax markaas dastuurka meel looga dhaceena dastuurka qodobkiisa 87 qodobkiisa 9 labadaba fiiri wuxuu mataqaana ku dhawaaqi karaa madaxweynaha xaalad degdeg ah kan waxay ka mid tahay xaalada degdeg uu ku dhawaaqi karay ka mid tahay waana sharciga dastuurka qodobka qodobka 9 ee dastuurka baargaraadkiisa wuxuu leeyahay wuxuu ku dhawaaqi karaa xaalad degdeg ah iyo xaalad dagaal iyo si waafaqsan sharciga isla markaa waa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya how kama marka aad iga dhaadhicin kartaa rag saaxiibada oo mas'uuliyada waaweyn oo walaalkeen hadda ku jira meesha وهذا الكلام اللي سكوت ما أنجل أنا حفيظ مكان جوبي دوت بلاد السكان ورد من الفضل وهي حقيقي سريعة جود إذا ما دخلنا وانا نشوف كقرنك ومدحونا جمهور الصومالية how come marka adiga dama wariyaha ii sheegaysa leedahay Biden waxa mataqaana amarka uu ka bixinayo inuu ninkada la fidina wuxuu ka qaadanaa mataqaana Secretary of State Secretary of Defense
of United States of America marka xoogaa yar shacbiga waxaan jeclaan lahaa inaan la marhabaabinay shacbiga inay og yihiin ay yaqaanaan dastuurkooda waxa ku qoran ayaa saxa waa tahay haykalka qarannimo ee jirta ee sax ah isla markaana ah taliye ciidan iyo taliye kale iyo askari kasta oo amar ka qaadanaya taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya waa tahay xildhibaan waa kugu soo laaban doonaa laakiin waxaan tabinin waa kugu soo laaban doonaa dabcan Axmed Fiqina waan sii doonaa waxaan ka tabinaynaa waa wax jira oo taagan oo muuqanaya dhanka kale aan siiyo Axmed Macalin Fiqi xildhibaan khilaafka taagan waad aragtaa xildhibaan saaxiibka Ibi wuxuu leeyahay wax weyn ma ahan waxaan adiga maxaad ku tilmaami lahayd waa mahadsan tahay caga yare waxaan u mahad celinayaa sidoo kale xildhibaan saaxiibka Cabdiraxmaan Ibi iyo saaxiibka kale ku jira Axmed Shire iyo dadweynaha Soomaaliyeedba marka koowaad sanad wanaagsan marka labaad waxa weeye khilaaf inuu jiro oo weliba khilaaf uu dhaafay oo hadda uu isku bedelay gacanka hadal waa wax aan sacabada la saari karin oo qof kastaaba og tahay golaha wasiirada iyo ra'iisul wasaaruhuna ayba sheegeen oo ra'iisul wasaaruhuna ku hadlay golaha wasiiraduna xalay shirkoodii ay ku cadeeyeen wixii meesha ka dhacay ayagaana xoogaal u ah xafiiskooda iyo waxa meesha ka jirta marka haddii aan wax yar isu golaale doorasho marka laga hadlayo khilaafka iyo arrintan hadda soo cusboonaato ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday waa arrin soo jiitamaysa haddaan taariikhda lala akrin oo dib loola akrin wixii 5 sano dhacayay dalkan ka dhacayay oo hadda la yiraahdo wixii 27 bisha dhacay kaliya ha laga hadlo waxa weeye dadku waa marin habaabayaan wax badan lama soconaya inkastoo dadka Soomaaliyeed la socdaan madaxweynahan wuxuu u xilsaarnaa markii la doortay shayga koowaad wuxuu ahaa in doorasho qof iyo cod dalkan laga qabto oo laga gudbo doorashadan dadban iyo 4.5ka waliba doorashadaas waxyaalaha ay ku dhacayso maxkamadda dastuuriga ahayd dastuurka la saxo amniga dalka wax laga qabto waxyaalahaas oo dhan inay barbar socdaan dhaqaalihii doorashadaas lagu qaban lahaa iyo nidaamka xisbiyada badan ee waxaas oo dhan banaakinaya khilaafkan uu markaa waxaan ognahay in saddex doorasho dalkan ay ka dhacday intii maxaa Cabdullaahi Farmaajo 5 doorasho ka dhacday 2 uu faragelin waayay waa tii Puntland iyo Jubbaland 3 dowladood goboleed oo kale oo isu gacantan ku dhigo wixii ka dhacay galmudug iyo Southwest iyo meeshan iyo Hirshabelle waa la ogaa inay waxaas doorasho lagu tilmaami kareen dadka sidii loo afduubayay odayaasha dhaqanka soo taagan sidii dad askara lagu qoray xildhibaanada that style doorashadii ayuu rabay inuu dalkana si guud laakiin xildhibaan galmudug oo kale adiga wasiir ka soo noqday waad ku qanacsanayd hadda markaad ka tagtay ma leedahay doorasho ma ahayn wax yariisud arinta galmudug ma taagna adaa soo qaatay intii murashaxiintii u tartamayay xilka oo dhan anuu xilli ma tartamayn 5 murashax oo xilka u tartamaya ayaa banaanka ka istaagay way khilaafkan uu markaa waa wax marqaati leh wax yariisud wada hawsheedaan doorasho dadban baa lagu heshiiyey waxaa la ogaa madaxweynahan in uu gudiyadii inuu xafiiskiisa ka shaqeynayay iyo xafiisyada dawladda iyo askar inuu gudiyadii doorashada yiri dalka ay maamulayeen laga dhigo taas buuq dheer inay kicisay buuqaasina inuu keenay in uu muddo-kororsi uu aado oo 2 sano dalka xildhibaan waxaas oo dhan waan soo tabinay anaga ka soo warrami jirnay khilaafka hadda taagan marka hadda soo gudubtay waxaas dadka waa in loo sheega ma kaliya prime minister kan kaliya waxa loo riday prime minister kii hore waxaa loo riday arrimaha doorashada waxaana lagu eedeeyay the same hadda waxa lagu eedeynaya kala ah inuu doorashadii iyo wixii qaban waayo haddaan tan usoo gudbo ra'iisul wasaare Roble wuxuu isku dayay inuu saxo tabashooyinkii iyo cabashooyinkii ka yimid doorashooyinka wuxuuna runtii meesha ka saaray guddigii xalinta khilaafaadka iyo gudoomiyihii guddigiiba waxay iska eriyeen sidoo kale gudoomiyihii guddiga doorashooyinka qaranka ee federaalka madaxweyne Farmaajo wuxuu leeyahay oo professor Ibi aadaan ugu xumahay runtii dastuurkana in lagu xadgudbo oo dastuurkana aan la akhrin yani qodobadiisana laga been sheego aad baan ugu xumahay laakiin si guud ra'iisul wasaaruhu isaga magacaabay guddigii uu magacaabay markuu talaabo ka qaaday intay dhaxdhaxaad noqon waayeenna madaxweynuhu wuxuu soo taagan yahay guddigii xilka kama qaadi karto haddana professorku maanta caawa wuxuu ii cadeynayaa madaxweynaha xil kama qaadi kartid guddigaas madaxweynuhu ma jirto meel
dastuurka soomaaliya ay uga caddahay horta kow waktigii waa dhammaaday oo farmaajo no more hadda uu yahay madaxweyne legitimacy xafiiska uu iska joogaa wuxuu sugayaa in doorasho la qabto keliya baawarkiisii wuxuu ku wareegay waa qodob dastuuri ah marka hay-adaha dastuuriga waktigoodu dhammaado xukuumadda xilgaarsiinta ayaa awoodda dalka la wareegay marka halkaas mana jirto madaxweynaha waktigiisu dhammaaday meel uu ka soo faragelin karo ama awood ra-iisul wasaare ku dhimi karo ama xaafi wixii uu sameeyey 27 December oo ahayd inqilaab cad oo ciidamada waa u imanaya midaas inqilaabka iyo waa u imanaya midaas waa u imanaya midaas fiqi waxaa fiicnaan lahayd khudbad ma jirtay inaad su-aalaha lagu weydiiy aad ka jawaabtid waxaa tiri madaxweynaha waqtigiisa u dhammaaday madaxweynaha waa kan soo magacaabay ra-iisul wasaaraha marka madaxweynaha inuu ra-iisul wasaaraha weydiiyo musuq maasuqa lagu hayaayo ha lagu baaro inuu boodo miyaa uu diido adeer madaxweyne musuq maasuq dadku ma soo ogo musuq maasuq waxaa soo oga maxkamadaha dalkaa soo oga weligeedna ma dhicin adduunka meel madaxweynaheedii asaga uu yahay ninkii mudaciga ahaa oo wax oogayay taasi waxay dembi ku tahay nidaamkeena dowladnimada iyo kala madax banaanida hay-adaha dowladda 3 hay-adood oo kala madax banaan hay-addii baarlamaanka hay-adda garsoorka iyo hay-adda fulinta hadda madaxweynaha waxaad sheegaysaa inuu uu yahay asagoo kan dacwad oogihi ma jirto mana dhicin guddi baa loo sameeyey ciidanka qalabka sidaa guddi bay u magacaabeen guddigiina riboor buu soo celiyey riboorkiina gacantu lugta hoosteedaa la geliyey taasaa waxay qasabtay in markaas kadib inuu asagu waa meel mudaciga xogtaas ma hayno kugu soo laabanaya lagu sheegay taas ibi haye si koob cabdi fatax waxaan rabaa walaalkay saaxiibkay axmed faqi wuxuu rabaa inuu dastuurka meel oga dhaco ama asaga anigu igu eedeynaya laakiin at same time qodobka 9 awood sidaan kuu sheegay qodobada u fiiraya isaga isla markaa fiiri qodobka C maha A B C asaga D E fiiri wuxuu ku leeyahay wuxuu xilka ka qaadi karaa dastuurka wasiirka markii ay soo gudbiyaan mataqaana golaha wasiirada at same time shalay ninka ku nomic revoke waxa la yidhaha jiro qofkii ku magacaabay iyadoo dastuurka uu kuu maraayo horta kaa qaada laakiin at same time markii cilad ay timaado haddana lagama leexan karo balna lagama leexan karo in si sharciga waafaqsan la sameeyo ee qodobka 103 oo uu leeyahay u kaadi inta u dhaxaysa taariikhda doorashada iyo markii ra-iisul wasaaraha cusub la dhaarinayo ra-iisul wasaarihii hore ee xilka hore u hayay iyo golihiisa wasiiradaba waxay u haynayaan xilka waxayna u fulinayaan waajibaadka caadiga ah ee dowladda si xilgaarsiina keliya maaha in wixii raba la ka sameeyo barnaamij baa jira dastuur baa jira madaxweynaha asaa ah hay-adda ugu sarreysa sharciga ilaaliyaha qaranka asaga ah haddaad tiraad madaxweynihii ma jiro it means if A is equal to B, B is equal to C, C must be equal to A Ahmedow. haddii madaxweynaha ma jira tiraad therefore C ma jiro hadda ku sheegay xisaabta matematikada been looga dhicin madaxweyne ma jiro gol wasiir ma jiro prime minister ma jiro wax jira qaranka ma laha banaanka waxaan rabaa nin baa xalay meeshii laga hadlaayay ku yiri ciidamada qalabka sida kulligood inay iscasilaan 30 sano na soo daalacdaa ku feeday dhibaatadii ka dhacday laakiin BBC ma tiri warkaas u ciidanka ku wareega qabaa'ilada ay la joogaan ee jabaadaha 30 sano na soo waata xildhibaan waxaan sameynaa cabdi fataaxo 30 sano kalena dib ugu celin ummadda Soomaaliyeed ee maanta rafaadsan ee dhibaataysan ee abaaraha ku dhacayso haddii bridge baasi burku xuraan magaalada Muqdisho waxaan leedahay shirweyne iyo dib hadda lagu celiyo dalka dariska ah hadda loo mataqaanaa hadda loogu keeno meesha dowladda anaga iyo ciidanka anaga iyo shaqaalaha anaga iyo xukuumadda anaga iyo waxaan dhan ay wada samaysiin oo maanta nin kasta askari ah ay ugu dhacaysa been rolkiisa mobilkiisa ugu dhacayso waaya xildhibaan ra-iisul wasaaraha markii hadalka madaxweynaha uu ka jawaabay wuxuu sheegay in afgembi wuxuu muuqanay lagu soo qaaday oo xafiiskiisii uu ku shaqayn jiray loo diiday taa sax maahan miyaad leedahay cabdifataax horta ilaahay baa laga cabsadaaye waxaa ila qurux badan baadiintaadana khayr allah siiyo fiican tahay laakiin waxaan rabaa hadda waxaa tiri adiga naftaada dastuurkii baaba dhibaato ka taaganta oo laisku haystaa miduu meel u raacayo aniga qodobo dastuuriya 87 9 qodobada 87 qodobka 9 qodobka 103 kulla kusoo yeeri baargaraafyadooda kusoo yeeri waan ku akhriyey
waxaan rabaa qofka ila doonaya saaxiibkay walaalkay aan aad u jecelahay iyo qodobkaas noocaas u fasaxayo qofka noocaas sida u fasaxayso marka haddaad dugtay aad maldahdid aan siino marka fiqigu ku jira aan siino hal daqiiqo oo kugu soo laabanaya jawaabta waad ii jawaabi doontaa laakiin fiqi haye وكسينا إيكادي فقه هاي فقه وكسينا سؤال ويدين ما وكسينا إبي وكسينا يا مدة سوجي ذا ويدين هاي فقه هاي ما هي سيد قضب دستوري هذا هاي قضب كبرجي ما هي هذا دقة وحي ويدين يا وبرصور كوحل الرواين ودتك الصومالي كذا بعثي أرجومنتي سيوفو هايو ماشى وحاوية مدحوينها وحال اسكو ديدان قضب دستوري لحدني أفر إن ومدحوينها وقت يسوع أفر سنة كويجي هاي معيد مرن كتاغن ومرن كقبتا يا جرتين سديدي بشي فبروري لما كل لاتني كو وهدا كوبي توم دلوت كورا إن مدحوينها وقت يسوع دعي wax muran oo ka taagan cid qabto meed taas dooda ma dooda waa khilaafka hadda taagan ee ra'iisul wasaaraha leeyahay ana wadi madaxweyne mandate le qodobadiisa aniga ila akhrin karo professor Idi madaxweyne mandate le madaxweyne mandate-kiisu markuu dhaco waxa weeye xukuumad xilgaarsiina ayaa shaqada qabanaysa way ibi aan si marka ibi waad aragtaa taan ka gudubno su'aasha uu jimo marka waxa dhacay wasaar ku caaw raasha adiga oo ka jawaab waxa qarba aniga waxaan joogay subaxdii waxaan joogay xafiiska mataqaana aan u howlgalay oo aan aadaan oo xildhibaana mas'uul oo waqti guddiga arrimaha dibadda ka tirsanay oo la badan jirtay waa tagay waxaan la yaabsanay dad waaweyn oo mas'uuliyiin oo xalay nin hadlay xataa uu dhahay labada meel kala saarnaayo oo iskala ilaalinay anigana waxaan subaxdii joogay prime ministerkayga waa niman xurmad u hayo qadarin badan oo ay ahlu diina rujul diini ah oo xurmad badan prime ministerkayga iyo prime ministerkiisa iyo taliya ciidanka booliiska iyo taliya xoogga dalka Soomaaliya iyo rag badan oo la taliya oo soo socda oo dadqaana iyaga hor yimaadeen jidka oo u socda prime ministerka aawo marka wixii ciidamo iyo beeba iyo baalkan laakiin dad wararkana soo gaaray waxay sheegayaan in marka hor loo diiday sidaan ay ku timid in madaxdan kale ay soo raacaan anaaba jooga kule markaati batid aniga liidin la jadaan anaa taagnaa witamiska runta oo meesha taagnaa ilaahayna markaatiige aakhirna iyo cadaabaana anaa meesha taagnaa waa joogay wayna soo baxay gurigiisa kusoo baxay prime minister khayr allah siiyo toos wuxuu yidhi xadiiskiisa asagii raggaasoo la socda waxaan rabaa inaan sheego ninka xalay yiri waxaan joogaa haweeneyda xadiiska oo sarta prime minister korkiisa waxaa saarnaa ciidankii mataqaa ilaalinaya prime ministerka ciidankii madaxweynaha kuwa kale sarta kale saarnaay waana isla ciidanka madaxtooyada oo hal taliya leh حتى بطليها وجو هل تليا كتليا هل إذا واي هل إذا كي بتقانا حقوق دولة الصومالية وأقابل إذا كي مدحتوية وبرايم مينستر كي مدحوينها والإلالية واي حال كل حق لو كان مرة وين أنا بيتك شيء مركا إبي وحليذا هاي لما هو رستاقين رئيس الوزراء مين لا هذه رئيس الوزراء لما هو رستاقين بعدين طيب وحنقول لها وحنقول لها ما نسأل وحنقول لها وحنبيدنا هاي هذا الكديل قاسكا iyo waxa aan waxba ka jirin ee dadka qaarkood ay ku hadaaqayaan sheegayaan waa laga fiicay prime minister iyo madaxweynaha shaqa ka dhaxayso u kaadi Cabdi Fataax shaqa ka dhaxayso hadalka u rubtay wadaha halka Soomaaliya waa margi hadda meesha loo jiido aadaya prime ministerka waxba lagu soo eedeeyay dadqaana wajira intii ay abal la gaarin bahawshan howlgalkeeda iyo wax sameynteeda iyo fulinteeda shaqaaqa la abuuray shaqaaqada la abuurana waa wax dalka maanta burburinay oo tirtiray dad waxa jiro كشقينا إن أي سووا حكوا النقودين إن دورش أي نعمة إذا دورش ونعد مركز وإن كشقيان إن بتقعنا والشجع برامج السركة إيه وحكة واتا حلبان وحسينا يا مركز واي حلبان أنسي مركز حلبان أحمد معلم فقي وخصوصا الله يعدم مالهن حلبان دنك رئيس الوزراء وحيري حفيز كبار الجور استاجي إبي سيدان بكدودة هذيك محد كدودس horta waxa weeye professorku isaga horta isdiiday wuxuu leeyahay waxaad yimid taliyihii ciidanka xoogga dalka waxaa yimid ra'iisul wasaare ku-xigeenkii waxaa yimid taliyihii booliiska waxaa yimid hebel iyo hebel maxay u yimaadeen oo ra'iisul wasaaruhu xafiiskiisa sidii rootiinka ha ugu tegi waayo maxay u galbiyeen oo sawiradaada aragteen ayagoo lugeynaya oo i suurtageli weyda xitaa baabuur inay raacaan maalinkii 12 duhurnimo maalinkii 27 bishii bay ahayd maxay geesaha uga taagnaayeen laakiin taas cadeen uma ahan in madaxweynaha ra'iisul wasaaraha lagu istaagay xafiiska cadeynta baan ka rabnaa soo waday cadeynta labaad waxa weeye shirki golaha wasiirada bil ijmaac ayagoo midaysan ay xalay yeesheen stagementina wasiirka warfaafinta u jeediyay anuma waxaan rumaysanayaa marka professor Ibi xildhibaan ila ah taageero waa farmaajo
miyaan rumaysanayaa mase wasiirka waxaan rumaysanayaa warfaafinta warkiisa oo xukuumadda afhayeenkoodiia miyaa la rumaysanaya laakiin xildhibaanka laftigiisa wuxuu sheegay in madaxtooyadu joogay markaas oo markhaati ka ahaa indhihiisa u kaarkay u sheegay ciidanku inay meesha isaga hor yimaadeen oo laba u kala baxeen waa markhaati badoonta annaga taasna caddaynteedaba u hayn aniga guddiga difaacan ku jira waa tahay ka warqabaa waa meesha ka jiray waana tagay sababtii waan tagnay cabdiraxmaan cabdishakuur marka uu leeyahay waxbaa ciidan baa meel saaran waa isla soconay waa indheheenaana ku aragnay annagaa dul istaagay goormaa tagtay meesha adiga marka wax la goormaa tagtay fiqiyo adiga goormaa tagtay doodiisa inuu meel kale leeyahay ciidamada meesha saarnaa goormaad aragtay adiga waa galabtii waa tahay laakiin waxay wax dhaceen suuxi bay ahayd waa ka gudbayna waxaan ku weydiinaya marka ibi wuxuu leeyahay ra-iisul wasaaraha waa taagnaayeen miyaa la xaliyey waaya ra-iisul wasaaraha ibi wuxuu leeyahay ra-iisul wasaaraha xafiiskiisii wuu tegey uu ku shaqaynayay waxba ma jirin arrintan wuxuu u sameeyey in eedaha loo soo jeediyey uu sidaa cagta u mariyo marka ra-iisul wasaaraha ma eedaha loo soo jeediyey inuu ka jawaabayd marka hore mise maxaa isku khaldan ra-iisul wasaaraha eed horta dawlad sharciyaa nahay annagu ma nihin koox qowlaysataah oo suuq ka shaqaysatoo kale maahan dawladdu hay-ado iyo nidaam iyo system bay leedahay haddii la is-eedeynayo iyo haddaan la is-eedeynayn intaba meelo lagu kala baxaa jira waxaa jira maxkamadihii dalkaa jira waxaa jira maaragta hadda maxkamadahaas unbaaba dhisan wax kaloo hadda dhisan maba jiraan hadduu madaxweynuhu dacwad qabo waxay idhi inuu geysto dawladdu waa dhisan tahay way shaqaynaysaa inay geysato maxkamadaha oo maxkamaduhu ay la soo baaro fiqiyow hadda wad hadday siigtaa madaxweynaha waktigiisu dhammaaday inuu rabay inuu doorashada carqaladeeyo cid kasta ayaa markhaati ka ah in uu rabay inuu arrintan doorashada ku carqaladeeyo wuxuuna khudbadiisii 27 meesha booliiska dabaaldegiisii laga jeedinayay waad maqlaysay guddoomiyihii hore golaha shacabka inuu yidhi haddii 31 December la gaaro oo 5 casho ka dhimaneyd markaas waxaa weye wixii ka dambeeya tallaabaan qaadanayna maxaa iska khuseeya marka gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha iska khuseeya waxaa iska khuseeya isku goob bay ka wada hadleen waana la ogyahay dee booliska iyo arrintaas waxa riixayay maxaa loo hayaa caddayn loo hayaa in farmaajo uu diidan yahay doorashada inay sii socoto waxaa caddayn loo hayaa walaalle waxaa caddayn loo hayaa dee waa wuxuu diiday guddiyadii in shaqo laga qabto maamuladii isaga maaragtay uu samaystay ayuu maaragtay ku taakeeyey in doorashadii ay si saxa u qabtaan dhammaan waxaa weeye niman tuhumanayaal ah oo gabadhii ikraam tahliil kiiskeedii ku maaragtay lagu tuhumay ayaa dhammaantood la rabaa in xildhibaana laga soo dhigo qaarna xildhibaano weliba tuunkaas uu dhamaaday waa tan go-aanka laga soo saaray qofka yaa go-aanka ka soo saaray qofka muwaadinkan uu tartami karaa waayahay dooda dhinacaas ma jirin